عيسى سنجود وأدحوج وصار يسوق أنا جي أركي لها إسقى عمرك عيقة دعوضي عجرت أنا بروت ويسيو أيا كوكلفتي إنه يسوي راديو أوكي وواضح حريرني إنه يسكتان واضح حريرنا أدنى وإيد قاعدين جري ولو هذا هو سنجوجين على تحل قارنو كسوعن قارنكم ما نسوعن فنانين خطرة نكرومة حبيبي عبد الجبر ليرادو اوكي وان فهمي ان انت كدب ان dhibaatada asno ay dalkay kugu gaadhay dalkuna dhibaato ay iska jirtaba laga soo bilaabo 1990 markii ay burburtay dawladda dhexe militariga ahayd in adigu ma qaaday heeso dagaalada quseeya ama wadaniya intii dalka aad joogtay ee dagaaladu ay dhaceen waxa jirto raid uu sameeyay ninka la yiraahdo Cabdulaahi Xasan oo dhibaatooyinka markay dhaceen kadib la sameeyay gabar la ilaahay waxa istuuxun waxay ka qaadaysaa hees la yiraahdo madfaca aqalkayga gubay anna waxaan ka qaaday hees la yiraahdo annagu guud ahaan haween inaad maqashay ma filayo heeskaas laakiin cid ahaan hadbeed waan ku maqashin karayaa anigu waxaan matalay markaa hooyo qaxayso qoryo ayaana lagu qabanayay markaa arwaayada dhigaynay haweenka ninka qoriga sito haween baa dhalay soma sax kala dilayo haween baa dhashay kan dhimanayo haween baa dhashay okay waxa dalka burburiye haween baa dhalay soma marka hees anagu aan qaaday oo anagu guud ahaan haween ragiiba garu qabnaa guuliyo gacal iyo wala haddii gabdhihii aan nahay gaygo nabadaan rabnaa guriyo dhaqan baan rabnaa geesiga aan korino gaashaan qaadaan rabnaa idina waad gowracadaan hooyada gabalan baad badan gaari baad ka dishaan ninkeeda hooyada gabalan baad badan gaari baad ka dishaan ninkeeda gabanaad ka dhigtaan agoon gadaafada aad wadaan gambacad baad noo xidhaane ragowmaad garqaadataane garqaada ayaan lahaan batahay binti waan fahmay intii dalka aad joogtay binti Umar Gacal maxaa ku soo maray oo la yaab leh adigu maxaa kugu yaabnaa oo musiibooyinka inta dalka dhacay ka dhaceen dalka maxaa kugu yaabnaa oo ku soo maray adigu waxay soo maray oo goobjoog u ahaa mar baa waxa lagu kacay jiingadaha in la iibsado jiingadaha sida loo iibsanayay umad marba wax xoogaa waxbay soo dareemayeen xaraantu inay xun tahay ayay dareemeen kadib go'aan waxa la gaaray jiingad qofkii lahaa iska gaday mooyee jiingad la soo fuqsaday inaan la iibsan macallin dugsi oo macallin Muuse la yiraahdo oo hadaba xaafadii joogo ayaa wuxuu dhistay boos oo isaga lahaa ayuu kulligiis jiingad ka dhigay oo wada dhisay waan gartay jiingaduna markaa aad baa loo raadinayay oo qalib ay ahaayeen suuqa si zaad loo iibsanay marka waxa laga iibsanaya oo kaliya ajikii qofkii lahaa laga gadanaya qof walba wuxuu isla waxaan waa xaraantii baa la soo fahmay oo la diiday waan gartay macallinkii qoryaha lagu qabtay oo guriga lahaa gartay jiingadii baa la yiri waan diiranaynaa waadna raacaysaa oo xagee waa ma bakaaran la tigisa waa iibsanaynaa meeshii lagu iibinayay waan gartay macallinkii wuxuu qasab ku noqotay maadaama qoryo lagu hayo inuu jiingadiisii la fujiyo ogolaado isla markaana uu raaco la taga meeshii ku iibsanayeen macallinkii wuu raacay jiingadii waa la fujiyay xaaji qamsi baa la saaray bakaara la geeyay suuqa la wada tagay waa la soo iibsaday macallinkii waxa lagu dhaariyay inuu isaga leeyahay jiingada oo dadkii iibsanayay waxay leeyihiin xalaalan rabnaa adiga ma iskala jiingada
marka xoolihiisa inuu markhaati uu ka noqdo inuu asaga uu leeyahay ayaa qoriga loogu qabtay oo markaasna asaga uu iibsanayo laakiin maaha qofka asaga lacagta qaadanayo hadduu ka dhiga laakiin in qori lagu wado macalinkana ku fuuhan la ogtahay macalinku wuxuu ku dhaartay inuu isaga leeyahay waa arrin la yaab leh waa mucjiso binti Cumar Gacal marka aanu intaa kaga gudubno arrinkaasi heesa badan baad ku luuqaysay abwaaniin aad u fara badan ayaa runtii heeso ku sameeyay marka heesaha abwaaniintaas ay ku sameeyaan abwaankii ayaa si gaar ah aad ugu xirnaan jirtay oo aan ula jeedo aad u jeclaan jirtay in uu asaga heesaha uu ku sameeyo ama heesaha uu sameeyo ay sameeyaan abwaanada heeskii ayaad u jeclaan jirtay runta waa abwaanada heesaha sameeyo wala kala jecel yahay laakiin aan waxaan runtii aad u jeclahay inuu mar walba miro ii sameeyo walow hal iyo labo ii sameeyay maxamed cabdilaahi sangur يوسف آدم الله أو السنة هي سميه أبوان يرون الجرنين لكن رواية دي أو دكسية أحمد شار عبدي يعني أنا صلاة دقني وحالي لا اسمه يوسف بلاك اسمه واجع لانجري يريدي إنكستو مركز فنان عام بحدي أنا نحين يوسف آدم الله وبلد حاوي يسميه أصلا واجع على هيسيسة هاس كلا ويسميه ورواية كجران وجران كذا بوان كعاد وجريود الله ونفريستو وحكلو جستو أبوان ليرادو حلو رنجري عبد القيس نصيبه ميران إنه هاس أدبان بشعرها كنتينا وأبوان صوماليات Soomaalinimada ilaa dhibaatada waliba marka waxaan ku sheegaya anigu in aan tagay markaan dhaawacmo kadib inaan Djibouti tagay Soomaalinimada intay ku dambeysay intii kale taa isi weydiiso inaan ku sheegi karayo watahay binti Cumar Gacal runtii waqtiga inuu haya awgii maadaama aan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga intaba adigoo fursadan ka faa'iideysanaya yaad salaan aad u dir lahayd maxaad ugu baaqi lahayd fanaaniinta waxaan oran lahaa JK dalkii wixii ka dhacay iyagu kulli way ogyihiin ana way arkayaan hadda waxay iga daawan doonaan Universal TV waxaan oran lahaa dhamaantood horta waad salaamantihiin intii xiriirsay intii kala waan u mahad celinayaa sababtoo akiliye wax walba xag rabbi ay ka qoran yahay hadal kale sidaa la waa qoran yahay saantu way qoran tahay kulligood waxaan oran lahaa waad salaamantihiin kadib waxaan oran lahaa dalku waa dalkiinii aniguna waad aragtaan sidaan ahay waxaan jeclaan lahaa inta aan ila soo xiriirin inay ila soo xiriiraan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku dhaqanna waxaan u sheegayaa lugteeda inaan dalka waxba looga qaban karin qofkii muslimnimo wax uu qabanayo waxaan jeclaan lahaa in dhakhtar aan helo fanaaniinta waliba waxaan ka codsan lahaa inay si gaar ah ay ogaadaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed wixii dalka jooga iyo wixii dibadiisa jooga bana JK waan salaamayaa kulligood fanaaniinta intii ila xiriirtay iyo inta aan ila xiriirin wali waan u mahad celinayaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay taasina waxa ahayd binti Cumar Gacal oo aanu toddobaadkan ku wareysanaynay barnaamijka fanka iyo suugaanta binti waxay ka mid ahayd fanaaniintii ku sugnaa dalka Soomaaliya oo isla markaasina dhibaato ay ka soo gaartay 6 laxaadna ku weysay intaanu barnaamijka lamida ku kulmi doono barnaamijka xagga editorka iyo farsamada waxaa si wada jir inoogu hagaya ama inoo jooga Khalid Maka Xaji Banaadir iyo waliba Cabdirasaaq Maxamuud Jaamac Muqasle anigoo ah Ibrahim Maxamed Xuseen JK ayaa idin la socodsiinaya barnaamijka intaanu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa JK oo idin leh sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh